يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. جابان dalka tobanaad ee dadka ugu badan caalamka ay ku nool yihiin waxaana ku dhaqan tiro lagu qiyaasay 126,919,659 qof iyadoo la ogsoon yahay inkastoo dalka Japan uu yahay wadanka ay ku nool yihiin dadka tiradaasi leeg haddana Japan waa wadanka ugu horeeya ee adduunka dhaqaalihiisa sida xoog leh ku kobcay isagoo ah wadanka saddexaad ee dhaqaalihiisu ku fidayo caalamka. Japan waa wadan dhaca qaaradda Asia. wadanka sagaalaad Ruushka waxaa ku nool 142,423 qof 773. Ruushka waxa uu xuduud la leeyahay 14 wadan oo ku yaala Yurub iyo Aasiya. wuxuu kaloo xuduudo badeed la leeyahay Mareykanka iyo Waqooyiga Kuuriya. dalka Ruushka waa dalka adduunka ugu ballaaran. magaalada Moscow ee caasimadda Ruushka waxaa ku nool dad ka badan 12 milyan oo qof waxayna ka badan yihiin dadka Soomaalida tiro ahaan. Ruushka waxa uu ku yaalaa waqooyiga Yurub waxa uuna qabsaday kaalinta sagaalaad waxa iyadana kaalinta sideedaad qabsaday dalka Bangladesh oo ay ku nool yihiin 168,997,745 qof. dalka Bangladesh waa dawlad Islaami ah oo ku taal qaaradda Aasiya waxaana lagu guuleystay in la xakameeyo kororka dadka tirada wadankaas ku nool. Bangladesh waa wadan faqri ah laakiin waa wadanka sideedaad ee dadka tirada ugu badan caalamka ay ku nool yihiin. waxaa kaalinta toddobaad galay dalka Nigeria waxaana ku nool 181,562,056 qof. dalka Nigeria inkastoo uu yahay dalka toddobaad ay ku nool yihiin dadka adduunka ugu badan haddana waxa uu kaalinta koowaad ka yahay qaaradda Afrika dalka ay ku nool yihiin dadka ugu faraha badan caalamka. waxaa kaalinta lixaad soo galay dalka Pakistan oo ku yaala qaaradda Aasiya 199,085,474 qof ayaa ku nool dalka Pakistan. dalka Pakistan waa xuduud la leh dalka Hindiya oo isla markaana kala dhaxaysa cadaawad. dalka Pakistan waa dawlad Islaami ah waana dalka lixaad ee dadka ugu tirada badan caalamka ay ku nool yihiin. waxaa iyadana kaalinta shanaad soo galay wadanka Brazil 204,259,812 qof. Brazil waa wadan ku yaala Latin America Amerikada Koonfureed waa wadanka shanaad ee ku nool yihiin dadka tirada ugu badan. muddadii u dhaxaysay 2000 ilaa 2011 tirada dadka Brazil sare ayay u kacday laakiin sanadkii ugu dambeeyay 2016 waxaa la sheegay in lagu guuleystay xakameyn ay waday dawladda wadankaasi oo lagu xakameynayo tirada dadka oo si xooriya u sii korayo. waxaa kaalinta afraad soo galay dalka Indonesia 255,993,674 qof ayaa ku nool. waa wadan Islaami oo dhaca qaaradda Aasiya waa wadanka tirada ugu badan ee muslimiin ay ku nool yihiin. waxaa kaloo la yaab leh 60% tiradaas aan soo sheegnay waxay ku nool yihiin jasiiradda Java. dalka Indonesia xilliga ugu jaamka badan ama ay baabuurta traffic jaamka ugu badan yahay waa xilliga salaada subax la dukanayo taasoo ku cadeynayso in dadka muslimiinta ay ku kala hayaan masaajidada. waxaa kaalin saddexaad ku jira wadanka Mareykanka 322,868,864 qof ayaa ku nool wadanka Mareykanka. Mareykanka waxa uu sheegtay inuu yahay wadanka ugu dhaqaalaha wanaagsan adduunka isagoo sidoo kale ku faanay inuu yahay xoogga ciidan ee ugu awooda badan adduunka. laakiin in dhaqaalaha Mareykanka uu yahay kan ugu horeeya adduunka taasi run ahaantii daah ayaa saaran maadaama xilliga Mareykanka ay la daalacayaan shirkadihiisa dhaqaale xumo u soo wajahday sanadihii ugu dambeeyay. iyadoo kale xusid ay mudan tahay in wadanka Shiinaha oo isna sheeganayo inuu yahay wadanka ugu horeeyo. sidoo kale Mareykanka waxaa ku yaalo shirkadaha ugu badan dhanka elektarooniga ku wanaagsan sida waxaa ku taala shirkadda Microsoft shirkadda Apple. Mareykanka sidoo kale waxa uu leeyahay jaamacadaha ugu wanaagsan caalamka oo haddii aad tahay qof wax ku soo bartay Mareykanka waxaad helaysaa tixgelin aysan helaynin dadka kale. kaalinta labaad waxaa ku jira dalka India waxaa ku nool 1,251,695,584 qof. dalka Hindiya oo ku yaala qaaradda Aasiya xuduudna leh dalka Shiinaha waa dalka labaad ee dadka tirada ugu badan ay ku nool yihiin
tobankii sano ee ugu dambeysay dowladda Hindiya iyo warbaahinta waddankaas waxa ay la daala dhacayeen ama ay wacyigelin u wadeen dadkaas Hindiya sidii loo xakameyn lahaa dhalmada. dalka Hindiya waxaa ku nool malaayiin qof oo faqiiriin ah iyadoo la ogsoon yahay tirada 50% inay yihiin dad faqiir ah. haddana waxaa barbar socda dadaal ay wado dowladdaas sidii ay ku xakameyn lahayd ama ay ku kordhin lahayd dhaqaalaha waddankaas si loo maareeyo malaayiinka qof noloshooda ay xunta. waxaa kaalinta koowaad ku jira dalka Shiinaha waxaa ku nool 1,367,485,388 qof. Shiinaha waa waddan dhaca qaaradda Aasiya wuxuuna xuduud la leeyahay waddanka Hindiya. waddanka Shiinaha inkastoo uu yahay waddanka dadka tirada ugu badan ay ku nool yihiin haddana xoogaas wuxuu ugu faa'iideystay inuu soo saaro ilo dhaqaale taasoo u horseetay inuu noqdo waddan dhaqaalihiisa si xawli ah ku koraayo. waddanka Shiinaha waxaa looga faa'iideystay xoogiisa adduunka dhan sababtoo ah waxyaabaha Shiinaha uu soo saaro waxaa lagu helaa si raqiis ah taasoo qasabtay dadka Shiinaha dhammaantood inay wada shaqeeyaan ayna yihiin dad shaqo ku hoolan. haddii aad haysato qof Shiinees ah waxay ka dhigan tahay inaad haysato qof aad u shaqeeya sida kombiyuutarka oo kale robotka oo kale u shaqeeya. sidoo kale dadka caalamka ku nool waxaa lagu qiyaasay 7,311,408,200 waxaana la sameeyay sanadkii 2016. haddii ku cajabiyay muuqaalkan like saar share garay subscribe mahadsanid.